gurmadka fatahaadaha ee ka socday magaalada Nairobi ee Kenya ayaa waxa ay deeq lacageed ku wareejiyeen guddiga gurmadka fatahaadaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan sida uu faahfaahinta warkan noogu hayo wariyahayaga Maxamed Cusmaan Makraan. wafdi uu hogaaminayay Sheekh Maxamed Cabdi Umul oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu xalay ku wareejiyay deeq lacageed oo ka soo aruuriyay magaalada Nairobi guddiga gurmadka ganacsatada Beledweyne. Sheekh Maxamed Cabdi Umul ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada lacagta iyo guddiga ay ku wareejiyeen iyo sida loogu qaybiyay gobolada ay saameysay fatahaada. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ilaahay ma hadis kale tabaaraka wa ta'ala. بعد ذلك waxaa mahadsan dhammaan walaalaha gurmadka loo sameeyo dadkii fatahaaduhu dhibaateeyeen ka shaqeynaya u taagan dadka macuunaadka iyo keenaya waxa dadka lagu caawinayo iyo gudiyada u taagan ee har iyo habeenba u soo jeedo dadkaas sidii wax loo gaarsiin lahaa aad bay u mahadsan yihiin ilaahayna miisaanka xasanaadka u saaro. halkan waxaan la fadhinaa anagoo ah guddigii waday wixii laga soo ururiyay Nairobi Kenya ee loogu talagalay dadka fatahaaduhu ay dhibaateeyeen gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo gobolka Shabeellada Dhexe intaba guddigii waday kaalmadaas ayaa meesha fadhiya dhinacayga fadhiya Cabdinaasir Cabdi Sheekh Abubakar Sheekh Abdulqaadir Muumin Xaaji Cabdullaahi Caraaye iyo gabadha iga dambaysa Shukri Maxamuud Afrax. waxaan la fadhino waa guddiga magaalada Beledweyne arrimaha fatahaadaha iyo dhibaatooyinkooda ka dhashay u taagan dadka sidii wax loo gaarsiin lahaa wixii soo gaadha loo maareyn lahaa dadku say u kala daran yihiin wax loo gaarsiin lahaa. waa guddi ka kooban 25 xubnood waa guddi guud ah iyo 9 xubnood oo fulin ah oo si hoose hawsha gacanta ugu haya. guddiga waa iswarsanay meesha la yiraahdo Muqdishona guddigii qaranka ee gurmadkan iyagana soo warsanay. guddigana waa guddiga ka hooseeyo oo farsamada hoose gacanta ku haya arrimaha gaarsiinta dadka la gaarsiinayo kaalmadana si hoose ayuu gacanta ugu haya. guddiga haddaan iswarsanay macluumaad badan isdhaafsanay runtii waxaa noo soo baxday dad aad u dadaalaya oo dadaal aad u badan bixinaya oo har iyo habeenba soo jeeda oo hawlahoodii khaaska ahaa ka tagay shaqooyinkoodii ka tagay dadkaas sidii wax u gaari lahaayeen ku hawlan aamin ah sida kolley aan muxuu ahaayay iyaguna noo sheegeen dadkuna noo sheegeen wixii soo gaadhay meeshii loogu talagalay ku simaya. guddigaasaan wada fadhinaa aad iyo aad bay runtii u mahadsan yihiin ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynayaa miisaanka xasanaadka inuu saaro. waxaa mudan inaan xusno guddigan waxaa ku wada jira dhammaan dadka deegaanka dega qabaa'isha kala duwan dad matala ayaa guddiga ugu jira muxuu ahaayay laguma kala maqna cid walba meesha wax lagu qaybinayo inay goobjoog ka ahaato weeyaan xikmadda muxuu ahaayay meesha loo sameeyay ama guddiga dadkoo dhan loogu soo daray. maanan la kulmin haba yaraatee wax sheegashooyin ah oo ama guddiga dhexdeeda ah ama dad xogta hoose dadka hog oo sheegasho ah oo gooni ah oo cid gooniya wax u qaadatay cid gooniya loo saydburiyay. wararkaasi waa iska dacayaad weeye inta hadda macluumaadka aan hayno. xaqiiqada jirta ay wax weeye waa dad dadaalaya khayr badanna runtii aan ku aragnay khayr badanna aan u filayno. iyagaas ayaan marka go'aansanay mas-uuliyaddii aan soo qaadnay iyo xoolihii aan wadnay dadka reer Nairobi ee Soomaalida soo ururiyeen inaan mas-uuliyaddeeda ku sinno. lacagta aan wadnay waxay ahayd $303,000 ayay ahayd. waxaa warbixin kale naga soo gaadhay ilaa intaan Muqdisho nimid ilaa guddigan aan la fadhiisanay inay gobolka Shabeellada Dhexe biyihii halkan ka tagay in ay iyadana saameyn weyn ku yeesheen oo tuulooyinka qaarkood go'doonsan yihiin. iyagana guddi baa loo sameeyay
guddigii baan ismaqalay waxaan marka go'aansanay inaanu wixii aan wadnay kala qaybinno aan 2 qaybood u qaybinno qaybna aan shabeellada dhexe u dirno qaybna aan magaalada beledweyne iyo tuulooyinka raacsan inaan insha Allah taala uga tagno oo guddigani ay matalayaan hadda aan la fadhino odayaasha ah guddiga waxaa oday u ah Xaaji Cusmaan Dhagaxow oo muxuu ahay odaygan muxuu ahay garka cas muxuu ahay mas'uulna u ah shirkadda dahabshiil xafiiskeeda Nairobi jooga waana ninka odayga xafiiskeeda waxaana beledweyne jooga hawlahan gurmadka socdana gudiyada kala gedisan isaga oday u ah raggan kale la fadhiyana waa raggii la shaqeynaya odayaasha ahaa guddiga fulinta ahaa xaaji sabriye sidoo kale oo isaguna jooga hormuud jooga u jooga muxuu ahay beledweyne iyo hiiraan muxuu ahay odayaashaas ayaan jeclahay insha Allah taala mas'uuliyadda nagala wareegaan lacagtaas wixii beledweyne loogu talagalay oo ah 183,000 oo dollar mas'uuliyaddeeda iyagaan ku wareejinaynaa ayaga meesha ay maslaxa u arkaan sida loo kala daran yahay say noo sheegan waxaa jira tuulooyin iyo degmooyin aan weli wax gaadhin baa jira dad sii daran baa jira riboodka iyagu ay hayaan inay wax ku saleeyaan oo dadka say u kala daran yihiin waxnu gaadhsiiyaan ayaan uga tagaynaa insha Allah taala tan kaleetana oo 120,000 oo dollar oo shabeellada dhexe loogu talagalayna iyagaan uga tagaynaa inay gaadhsiiyaan oo u diraan guddigiina waa u sheegaynaa oo wada hadalay lacagtaas inay la wareegaan iyaguna tuulooyinka go'doonka ah inay gaadhsiiyaan oo ay ku siban kolba sidii suurtagal ah meelaha qaarkood raashin ma gaadhi karaa la leeyahay laakiin kolba sidii wax lagu gaadhsiin karo in lagu gaadhsiiyo marka xaaji naga guddooma ammaanada iyada naga guddooma insha Allah taala Sheekh Xaaji Cusmaan Dhagaxow oo guddiga oday u ah Allah yabaarik insha Allah taala jazakumullah khair marka xaajiga waxaan ku wareejinay ammaanadii 120,000 oo shabeellada dhexe loogu talagalay oo ay u dirayaan iyo 183,000 oo dollar oo loogu talagalay magaalada beledweyne iyo hiiraan iyo wixii tuulooyinka ugu dardaran iyo magaalada dhexeeda wixii iyagu kol siday maslaxa u arkaan ayaan ku wareejinay marka xaaji soo dhawaada ammaanadan nagala wareega insha Allah taala Allah idin barakeeyo xaaji Cusmaan Dhagaxow Haaruun gudoomiyaha guddiga ganacsatada gurmadka beledweyne ayaa ka gudoomay lacagtan Sheekh Maxamed Cabdi Umul waxana uu sheegay in dadkii loogu talagalay ay gaari doonto alxamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah jazaakumullahu khayr waftiga ballaaran oo hogaaminayo Sheekh Maxamed Cabdi Umul oo ka yimid Nairobi oo deeqda u keenay gobolka Hiiraan magaalada beledweyne gaar ahaan ma aha deeqdii ugu horeysay weligood ay u soo gurman jireen wax ka horeeyay waa meesha kaliya halbowlaha oo ah gobolkan markay wax dhacaan aan ula carari jirnay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka sokow waxaan leenahay khayr badan Allah idinku bedelo taasna waa idinka gudoono lacagtaas 303,000 oo dollar waan gudoomay akoonkayga ku jirtaa akoonka loogu talagalay guddiga ayay ku jirtaa guddigii oo dhan waa kan fadhiya inta aad noo sheegteen oo ah 120,000 oo dollarna gobolka shabeellaha dhexe Jowhar guddiga ka dhisan ee aad noo magacawdaan ayaan gaarsiin doonaa insha Allah taala waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu asturo amaanada aan noo dhiibteen idinka caawa idinka fududaatay annaga culayska nagu soo wareegay waxaana jecelnahay annagana habeenkii uu naga wareegtay inaan fududaan doono guddigoo dhan waxaan ku dardaarmi doonaa insha Allah ay wada fadhiyaan in amaanada culus laga bilaabo saacadan sidii aan ku gudan lahayn ayaan u diyaar garowno insha Allah taala Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha noo fududeeyo idinkana safarkiina Allah idin fududeeyo amaanadan waa idinka guddoona shaqada iyo 3,000 oo dollar oo loogu talagalay magaalada beledweyne iyo hiiraan iyo wixii tuulooyinka ugu dardaran iyo magaalada dhexeeda wixii iyagu kol siday maslaxa u arkaan ayaan ku wareejinay marka xaaji soo dhawaada amaanadan nagala wareega insha Allah taala Allah idin barakeeyo xaaji Cusmaan Dhagaxow Haaruun gudoomiyaha guddiga ganacsatada gurmadka beledweyne ayaa ka gudoomay lacagtan Sheekh Maxamed Cabdi Umul waxana uu sheegay in dadkii loogu talagalay ay gaari doonto alxamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah jazaakumullahu khayr
wafdiga ballaaran uu hogaaminayo Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka yimid Nairobi oo deeqda u keenay gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne gaar ahaan ma aha deeqdii ugu horeysay weligood ay u soo gurman jireen wax ka horeeyay waa meesha kaliya halbowlaha oo ah gobolkan markay wax dhacaan aan ula carari jirnay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka sokow waxaan leenahay khayr badan Allah idinku bedelo taasna waa idinka gudoono lacagtaas $300,000 waan gudoomay akoonkayga ku jirtaa akoonka loogu talagalay gudiga ayay ku jirtaa gudigii oo dhan waa kan fadhiya inta aad noo sheegteen oo ah $120,000 gobolka Shabeellaha Dhexe Jowhar gudiga ka dhisan ee aad noo magacawdan ayaan gaarsiin doonaa insha Allah ta'ala waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu asturo amaanada aan noo dhiibteen idinka caawa idinka fududaatay annaga culayska nagu soo wareegay waxaan jecelnahay annagana habeenkii uu naga wareegtay inaan fududaan doono gudigoo dhan waxaan ku dardaarmi doonaa insha Allah ay wada fadhiyaan in amaanada culus laga bilaabo saacadan sidii aan ku gudan lahayn aan u diyaar garowno insha Allah ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha noo fududeeyo idinkana safarkiina Allah idin fududeeyo amaanadana waa idinka gudoona sheekh